siya waxana aynu la safnayn ama aynu taageersanayn ama aan xataa anigu ahaa afayeenkoodii golihii siyaasiyiinta Soomaaliland oo kamid ahaa madashii badbaadada ujeedada loo sameeyayna ay ahayd in la helo doorasho xor oo xalaal ah oo dadka Soomaaliyeed si siman ugu tartamaan inaguna maadaama aynan deegaankeenii doorasho ka dhici karin aynu helo fagaaro lagu tartamo iyo garsoor dhex ah oo inoo garsoora isqabqabsiga iyo muranka iyo isjiidka dheer kadib ummadda Soomaaliyeed 27 bishii May waxay isugu yimaadeen shir magaalada Muqdisho kaas oo lagu soo gabagabeeyay isqabqabsigii aynu qaybta ka ahayn isqabqabsigaas marka la eego dadka reer waqooyiga u dhaxeeyay tiimka xukuumadda oo uu ra'iisul wasaare ku-xigeenku hogaaminayay iyo tiimkii gudoomiyihii hore aqalka sare uu hogaaminayay oo iyana dhinac ahaa waxa la isku hayay ee ugu weyn ee aanu qaybta ugu ahayn aynu ka dagaalamayna waxa ay in la helo doorasho xor oo xalaal iyo fagaare xalaal ah hase yeeshee markii la gaaray waqtigii dheeftii loo dagaalamayay ahayd in guddigu labada dhinac ka yimaadaan la gaaray arintii iyo mabdii wuu isbedelay wuxuuna isu bedelay in wixii aynu kaga cabanaynay qolada xukuumadda ay ahaa in dad ay jeebada ku sitaan ama dad gaar ah ama dad ay ehel dhow yihiin xubno kamid ah xukuumadda iyo xildhibaanadii hore ay keeneen ay qoladii kalena dhaqan la mid la yimaadeen isla markaana ay keeneen dhalinyaro aan halgankii iyo ujeedadii midna lug ku lahayn kuwaas oo aan wax badan kala socon arrimihii la isku hayay markii ay keeneen kadib ay aqbaleen qaybsigii la qaybsaday in 4 xubnood iyo 7 xubnood loo kala qaato oo xukuumadda oo iswadata guud ahaan ama ra'iisul wasaaraha ama ku-xigeenkiisu ay 7 xubnood keenaan Cabdi Xaashi iyo tiimkana 4 xubnood keenaan guddiguna sida 12 xubnood ku noqdo isla markaana ay noqdaan guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Soomaaliland oo loo yaqaan SID go'aankaas oo lagu wada qancay la isla wada qaatay labada dhinac aynay ku heshiiyeen ayaa lagu soo gabagabeeyay murankii hase yeeshee markii la magacaabay magacaabistoodii soo baxday ee ay guddigii gaadhay inay isdoortaan waxa bilaabmay khilaaf hor leh oo ay bilaabeen saaxiibadeedii siyaasadda ee golaha siyaasiyiinta Soomaaliland oo waliba aan wada dhameyn qaarkood ay caqabad u arkayeen in ay lugta jiidaan doorashada oo ay caqabad ku noqoto doorashadaas oo dadka Soomaaliyeed guud ahaan ka heshiiyeen waxyaabihii la isku hayay waxay dib u abuureen tiimka aan saaxiibada ahayn in ay doorashadii ragaadiyaan isla markaana muran geliyaan afartii inan ee marka horeba sifa khaldan ay ku soo magacaabeenna ay kala baxaan golihii meel gaarana geeyaan guddigiina kala dhantaalaan isla markaana doorashadii Soomaaliyeed oo dhami ay u istaagto ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed wuxuu isku dayay inuu isu keeno labada dhinac hase yeeshee ma jirin wax ay ku qanceen ama waxay ku heshiiyeen ugu dambeyn ra'iisul wasaaruhu wuxuu qaatay inuu isagu go'aan ka gaari doono arrinta doorashada gobolada waqooyi maadaama laba saaxiibadeeda siyaasaddu aynay wixii ay markii hore aqbaleen ay ahaa inay 4 xubnood qaataan ee magacaabistii markii la magacaabay ay arkeen in la magacaabayna ay aqbaleen aanay ka hadlin ka hadalkeeda markan dambe iyo inay ka saaraan xubnihii waxaan u aragnay waxaan cadaalad ahayn waxaan xaq ahayn waxaanay noola muuqatay wax la mida wixii aanu ku diidanayn tiimkii xukuumadda ee ra'iisul wasaare ku-xigeenku hogaaminayay ee aanu u arkaynay inay cagajiidayaan ama lugta hayaan doorashada sidaa darteed marka arku halka marayo waxaanu soo jeedinaynaa ra'iisul wasaaruhu uu kala yaqaana dadka reer Soomaaliland ama reer waqooyi muddo ka soo shaqeynayay hadii lagu heshiin waayay go'aan laga gaari waayay arrinkaas inuu go'aan ka qaato dadka cuqaasha haweenka dhalinyarada iyo musharaxiinta u tartamaya kuraastaas ee madaxa banaan kala tashado hadii guddigaas sida dhaqso ah la isugu celin waayo isla markaana guddinimadii lagu dhaariyay ee maalintii la dhaariyay ayay guddi noqdeen oo Ilaahay hortiisa ku dhaarteen inay dadka dhex u ahaanayaan hadii taa la aamini waayo inuu kala diro guddi cusubna magacaabo isla markaana dadku doorasho diyaar u yihiin buuq waa ka daaleen oo go'aan ka gaaro sida doorashada Soomaaliyeed ay uga bilaabantay Jubbaland uga bilaabantay koonfur galbeed uga bilaabi doonto Puntland diyaarka ugu tahay dadka xamar sideenoo kale lagu dooranay diyaar ugu yihiin aynu diyaar ugu noqono doorasho xaran aanu gallo ayaynu maanta soo jeedinaynaa waxaanu ku talinaynaa in ra'iisul wasaaruhu go'aan qaato aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhamaantiin